السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي على سود وهذا مال ولي بود كشوفتان دوني دافي هذا ولا لا يقالي الصوماليات دمانتين السود وهذا أرين دقة أرين قرد ويتدعي وأرين لياب له وأرين فجع له ونهانتي وأرين مرقبا أرين تامانتي إذن وضع إذن سوق بنايو وأرين آدي أنا وحمادي آدي وقيروضي تنكرني waxayba noo noqotaba Soomaali hadaan ahna musalsal ayaan noqotaa dhigi karaa arintan way ku soo noqotay Soomaaliya degdeg burca ayaa gabar loo kufsaday dil iyo kufsina waa la isugu diray wuu kufsaday dil ayuu ugu sii daray nafta ayuu dhaafiyay ogal gabar baa meel lagu kufsaday gabar baa meel lagu xoogay gabar baa la dilay kufsi iyo dil ayaa socdo وأرن أد لوج حماد وأرن أن كتيران يوضي وأرن أن كنحي وأرن أن حاكل هاي أنا هانتي أد أنا وحما هاي أد نقلبي إدم قنايو إن برع أي جبر سمارد لو كفصدي وهوية وعرور هستة وهدنا أرضية أو جامعة لقتها وفيوجر في عن مستقبل في عن وبحي ودل كذا وحقبتي دتكيد كجوناين بريتو هدي وحبرته iyo wax barata dadkeeda Soomaaliya Soomaali iyo hooyana way caruur soo korsanaysay waa hooyo la dilay la kufsaday dambiilihii dilka geystay waa nin Soomaaliyeed ma aha nin wadan kale nooga yimid waa nin Soomaaliyeed waa nin kolay magaalada Burco la joogay uu kufsaday wuu dilay gabadhi waxayna ahayd hooyo Soomaaliyeed oo magaalada Burco ku nool سبحان الله Soomaaliya kufsigu wuxuu noqday musalsal oo kale ayuu iska noqdaba maalin walba jaraadiyada ama lagu soo qaadanaya waxa iska noqdo wax musalsal ama filim oo kaleeto ayuu ka noqdo Soomaaliya subxaan Allah dadku waxa u maleysaa gabar baa la kufsaday waa la dilay caadi ah taa waa iska sii socdaa hadana berito la mid kale la kufsanaa ninkii dambiilaha waa la iska sii deynaya berito la gabar kale hadana sidii yeela soo hadana la xukumin aan laga damqanin arintan kufsiga ku soo noqotay Soomaaliya nahantii diiwaanka iyo taariikhda Soomaaliya hadana wax xun ayaa noo galay kufsiga uuna dabar jaray dumarkii waxba isla ma hayno Soomaaliya soo dumarku waa udub dhaxaadka bulshada mar walba iyaga hadii la dhaawacane ogaada bulsho walba dhisan waxa ku dhisan tahay dumarkii hadda la weerarayane wax jira malahan fahamtay Soomaaliya fiidiyogana xagga dambe ayaad ka arki doontaan familka gabadhii oo oynayo baroranayo gabadhii si loo dilay hospitalka Burco ayaa la geeyay meedkeedii dambiilihii oo gabadha kufsaday oo dilka iyo kufsiga isku daray oo naxariista lahayn waxa dhan fiidiyoga dhexdiisa ayaa ka arkaysiin markana runaantii waa arin aad looga damqaday cid walba oo Soomaali arintan ka danqanayso wanaga fiidiyowga si share garay doonto si oo macnay gabdho far badan oo Soomaaliyeed oo waxa ku dhahay oo walaalahayga maalin walba la dhibaateynaayo oo hal iyo laba ahayn maalin walba gabar ayaa la kufsaday waa la dilay yaa rasuulullah waxas musalsal ay baan la noqday wax caadi ah galiile ma ka duuleysana xariista dhinaaba ka tagtay dadka aan ma aqaan soo gabdhaha waxa u leenayaan gabdhaha wax loo kufsanaayo bulsho walba waxay ku dhisantaa waa dumarkuna waa birmagoydo dumarkuna waa in la ixtiraam ma haystaan dumarka Soomaaliya kaaga dan ayagu ixtiraam haysanin ayaa dana nafsadoodii loo soo dhigto la haweysanaya dil iyo kufsi ayaa lagu daxo rahantii arinta Burco ka dhacday waa arin aad ugu xumaa hadii aan gabar Soomaaliyeed aad ugu damqanaya marxuumadaasna Allah naxariis janna ka waraabiyo waxaan rajeenaa in cadaalad hesho dambiilihiina dilka geystay iyo kufsi isku dir gabadhaas walaasheena waxaan rajeenaa in cadaalad uu mari doono runaantii mar walba in gabar Soomaaliyeed kufsaday jaraadid lagu soo deeyo ama wax musalsal laga dhigto Soomaaliya taas caada ayaa ka dhigan waxaasna looma baahna hal istaago gabdhaha Soomaaliyeed wax loo qabto aaween dadkii xuquuqul aadanaha u doodi jiray aaween ma jiraan miya dadka oo wasaaradda haweeneed halka Burco ka dhacday kole Burco wasaaradda haween wax walba way leedahay Soomaaliya
wasaarad ama wasiirada arrimaha haweenka qaabilsan way leedahay so dilka markuu dhaco goobta la imaana falka markuu dhaco wala ani waxa ma garanayo waxa ka hadla ama waxa ka dhaho ma garanayo run ahaantii so waxay noqdeen musalsal iska soconaya gabar baa la kufsaday gabar Soomaaliyeed baa la kufsaday gabar Soomaaliyeed baa la dilay hadda burca ugu dambayso dil iyo kufsi ilaahay naga qabto wax kufsana wax gabdhaha dhibaateena Allah naga qabto gabdhaheena Soomaaliyeed sharta iyo shaydaanka Allah ka xijaabo waa idin duceena aniga wax kale idin gala ma lahan laakiin fiidiyoga ila daawada family gabadha walaalkeeda oo hadlaayo aydan naxariis jin Allah ka waray marxuumad u soo duceeyay waxa kale u duceysin in cadaalad hesho waxa kale oo Soomaaliya soo duceysin in aan dumarka Soomaaliyeed ay helaan cadaalad iyo si ay u noolaan karaan waayo si oo noolaan karaan ma haystaanba waa la dilayaa waa la kufsanayaa waa kufsatay dil baa lagu sii darayaa iyo ku sheegin waa malaay ku garanaysaa ma aqaan حاجة دنبا وحبا كلا السعودة أنا وحا كو هادلا يستيل ما قرنايو سو هذا القلدم كو هادلا وإدي قرالي قلنا جايس كي سو دارين كي مجوغو مانتا إن فيديو قنسي شاركرا وانا محسنتي هنا hooyooyinka way dhiban yihiin sidaas oo midhan baa nagu dhacaysa maanta marka hadii laga qaato ta dambe noogu xigta saddexda guriga afarta guriga jooga la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doolayno hana laga qaato waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandara oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habinimadii xaaladaha gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad Ogbaad Cali Cabdilaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyo haysata 3 caruur oo kalinimo korin jirtay Naasir Cali Cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiideynaa family-gayga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyskayga geerida ku timi walaashay Ogbaad Cali Cabdilaahi oo gacan ka xaqdareyn ku dishay xalay magaalada Burco Ogbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay 3 caruur oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxisay guriga caruurta laba ka mid ah guriga ayay degeysay xalay waxaan sugeynay inay guriga u soo hooyato adigu waxaan weynay xalay tolo maqnaashiyeedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meedkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysana hadda ku xidhan saldhiga dhexe Burco ayaa saldhiga iskeeyay kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhiga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meedkeedina halkaas u yaalaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku inta kadib ciidanku cadeymahoodii iyo sida wax u baadhayeen ayay waxaan ku wari u hawlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyay gurigii aynaantu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay saldhiga qolka dilka la geliyay qayb kalena waxay qaaday meedkii oo waxay geysay isbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyay inay gabadh inantu meed tahay waxa la geeyay qolka meedka ama talaagada meedka lagu rido muxuuha isbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka 7 barkii markay ahayd ayaan ogaanay family-gaygana aniga ugu horagaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meedkeedina yaala talaagada dhakhtarka weyn ee Burco halkan hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad Ogbaad waxaana dhinacayga taagan dad kamid ah dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad deganadeen ninka Farduus Axmed Yuusuf baa la yiraahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bishakoodeedu guriga soo galay waa laga kareeyay uu nugula jiray habeenkiina cidina ma joogin gabadhna uma joogin kaligiiba ku jiray seexan jiray anigu laba habeen inta dhowr habeen biiga soo horeeyay anigu 12 soo hoyda habeen badan biiga soo horeyn jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagay ka furi jiray dadna qolkayga iska geli jireen seexan jiray Naasir Cali Cabdilaahi oo wiilka la dhashay marxuumadda ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex marayaan oo ahaa in ay xiriir ka dhaxeeyay marxuumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhaxeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin waxa dhacdo adigu
dee annagana argagax gelisay oo dee masiibo ahu wax kalaan ku sheegi garamayne islaamka meel ay joogaanba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto ilmaha caynkaa ku dhacmaya ee hablaha iyagii suuqa maraya markiiba 7 subaxnimo la qaadanayo lagu hoos dilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu bireysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashanahay waanu ka hooyaynaa waanu ka gubanaynaa inna loo qasaaseeyo qasaaska islaamka loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysano ma doonayna in jana loogu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xul loo geystay haddaanu hooyanahay waanu ka damqanaynaa meydka marxuumada Ugbaad ayaa waqti xadirkan yaala qolka meydka ee isbitaalka guud ee magaalada Burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka